bismillahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale kusoo dhawaada casharkeena xiga ee barashada Windows 10. ugu horeyn waxaan soo baranay sida loo soo shido kombiyuutarkaaga ama loo damiyo. markaa soo shido kombiyuutarkaaga waxaa kusoo bixi doonta shaashadan. halkan waxaa la yiraahdaa desktop, waa meesha ay ka soo muuqan doonaan wax walba oo shaashadaada aad soo saarto. tusaale haddii aad sawir taabato waa meesha uu kaaga soo muuqan doono. okay, waxaan baran doonaa start menu iyo calaamadan sirjiga ah, waxyaabaha ay qabtaan iyo waxa faa'iido ah ay inoo leeyihiin. halkan sidaa soo sheegay waxaa la yiraahdaa desktop, halkan waxaa la yiraahdaa start menu, halkan waxaa la yiraahdaa search button, halkan calaamadan dheer ee cadna waxaa la yiraahdaa taskbar. okay, calaamadan start menu maxay tahay, maxay qabataa, maxay faa'iido leedahay, sidee loo soo shidaa calaamadaas? ugu horreyn start menu sidan ayaa loo soo shidi karaa. waxaa jira qaabab dhowr ah oo kale oo loo soo shidi karo. kan ugu horeeya waa kan oo ah inaad timaado start menu dusheeda kadibna aad kilik ku dhahdo. habka kale ee loo soo shidi karo ama hababka kale ee loo soo shidi karo waa keyboardka. in keyboardkaaga aad timaado kadibna aad taabato calaamadaas. computer walba wuu leeyahay oo Windows ah, waxaad taaban doontaa calaamadaas. markii aan taabto sidan ayuu igu soo shidmi doonaa si la mid ah sidii hore start menu. okay, qaabka kale ee aad u soo shidi karto start menu waa inaad taabato calaamadaas controlka adigoo hayana aad la qabato calaamadaas escape ama esc. waa isla qaban doontaa sidan, kadibna sidaas ayuu kugu soo shidmi doonaa start menugaaga. okay, start menu muxuu yahay marka? start menu waa meesha aad ka arki karto dhammaan softwareada ku duuban kombiyuutarkaaga. sidaan ujeedo hadda applicationka access, adobe. okay, applicationada ama softwareada ku duuban kombiyuutarkaaga oo dhan halkan waad ka arki doontaa. intan waa inta hadda aniga aan meesha soo saartay ama inta ugu soo horeysa ee ii muuqata. sidoo kale waxaad samayn kartaa in applicationka aad u badan tahay oo kale aad halkan bin ku dhahato oo halkan aad soo saarato. hadda applicationada ayaan soo saaray, waxaan isku dayaa hadda inaan soo saaro access oo kale. kilig ayaan dhahaya, kilig anigoo haaya ayaa muuska soo jiidaya, waxaana keenaya halkan. waxaan ku darsan karaa folder hore ama group hore oo ii samaysnaa album hore. album cusubna waan bilaabi karaa haddii calaamadaas buluugta ama highlightka uu kuu soo saaro. waxaa kuu bilowday album cusub. okay, haddaan raba inaan ku daro groupkan oo adobe-ka ah ama application kale oo adobe ah, waxaan rabaa inaan ku daro groupkan adobe-ka ah. waxaan soo qaadi doonaa applicationkaas, waxaana soo saari doonaa halkan ama already binet oo idhaha hore ugu jiray adobe kala soo qabanaya, adobe photoshop ii soo qabo. sidan ayaan dhihi doonaa, waa ku dari doonaa. okay, waxaan rabaa groupkan kale inaan wax ku biiriyo ama groupkan aan cancel dhammaantiis. waxaan dhihi doonaa right click. marka aan dhaho waxaan dhihi doonaa unbin from start. okay, waxaan fahanay in applicationada aan u badannahay halkan aan soo saaran karno. okay, muxuu kaloo startiga qabtaa? start menu muxuu kaloo qabtaa? start menu waxaa ku jira applicationo badan sidaa arkaysaan, xataa foldero applicationada inoo degsan oo dhan. okay, sida halkaas kaaga muuqata start menu wuxuu leeyahay calaamad start ay ku qoran tahay. markaa soo furto waxaa kusoo baxaysa userka computerkaaga ku jira. sidaa ognahay computerada dhowr user ayaa lagu isticmaali karaa. documents, pictures, adiga waa soo biirsan kartaa. waxaadna samayn kartaa personalize list inaad dhahdo. markii aad dhahdo waxaa kusoo dari kartaa sida halkan aa ujeeday file explorer oo kale aa kusoo dari kartaa applicationka aad rabto oo yacni inuu ka soo muuqdo ayaa on leedahay. waxaan rajeynaa hadda inaan isla fahmayno. applicationka aad rabto inaad kusoo darto music oo kale on aad leedahay, network on. okay, sidaa ujeedno way kusoo biireen, musica kusoo biiray, networka kusoo biiray. waxaan rabaa application kale in aan ka saaro. tusaale waxaan rabaa application kale in aan ka saaro. waxaan ka saaraya kuwii hadda aan kusoo daray network. labada waan ka saaray, sidii hore ayuu kusoo laabtay sidaa arkaysaan. waxyaabihii kale oo aad rabtidna waa kusoo darsan kartaa sida hadda kuu muuqataba. okay, waxaan rajeynaya inaan isla fahanay.
documents waa halkan waa settings si toos kuu geynaya haddii aad taabato igu soo celi marka halkan waxaa ku jirta calaamadda power waxay leedahay dhowr nuuc sleep waa computerka waxaa rabtaa inuu damin laakiin xoogaa shaashadiisa ay madoobato sida halkan kugu soo qoraya stays on ahaanaya but uses low power dab badanna kaama cunayo applicationadu stay open way furnaan doonaan so when PC wakes up yani applicationada kaama xirmi doonaan sida computerka aad damisay oo kale waa sida telephone aan log gelisay camal okay shutdown waa damin caadi ah restartna waaba garan karnaayo computerka uu damay haddana wuu soo shidmaya kulli ayagoo qoraal halkaas kor kugu soo qoraya I hope hadda startiga inaad wax badan ka fahantay okay aan usoo gudubno marka calaamadda sirjiga waxaa ka raadin kartaa applicationada ama waxyaabaha ku jira computerkaaga tusaale haddii aan dhaho Adobe si automatiga inta Adobe ay ku jirta waa kaasa say igu soo baxeen tusaale waxaan dhihi doonaa fast waa kaasa applicationka kale hadaa ku wareerto ama aweyso kale computerkaaga ka weyso kaliya search ayaa dhahaysaa startiga wax saasa kama duwana wuxuu yani uu ka yara fudud yahayo applicationka search dhahan kartaa I hope asna searchiga in la fahmay searchiga ma dhib badna applicationka aan rabo waa raadin doonaa kaliya TikTok oo kale markaan sii bilaababa wuu isoo baxaya tusaale WhatsApp sida kuu muuqata waxaa kuu soo baxaya xataa sawir search waa dhihi kartaa sawir kala kugu jiro computerka ama video search waa dhihi kartaa sawir keyboard ah oo aan computerka igu jira ayaan search dhihi doonaa inkastoo sawirka uu ii yaalo desktopka oo kan uu yahay haddana calaamadda searchigan ka raadin doonaa keyboard waa kana hoos ayuu igu soo baxay waa sawirkii wuuna ii sheegaya wax inuu photo yahay photos ayuu ii soo qoraya I hope in casharkan aad loo fahmay oo ku mahadsan tahay daawashada casharkan waxaan rajaynayaa casharka xiga inaad isku soo laabano insha Allah sidaas iyo nabadgelyo